page margins hareeraha boga. hareeraha boga. A marginku is the space waa spaceka between u dhexeeya the text qoraalka and the edge of your document iyo geeska ama darafka documentigaaga. To change si aad u bedesho your document's margin size cabirka hareeraha documentigaaga. In the layout tab waxaad tagtaa carabka layout, click waxaad gujisaa the margins command amarka ah margins ama hareeraha. A drop down menu will appear, daaqad yar ayaa kusoo muuqanaysa, click waxaad gujisaa ama aad riixdaa ama aad taabataa predefined margin size, marginka ama cabirka markaas adi aad rabto ayaad gujinaysaa. Page break kala goynta ama kala jebinta boga. The page break is the location waa booska in the document ee documentiga where halkaasoo one page ends hal page uu ku dhamaado, waa meesha bog uu ku dhamaado, and a new page begins iyo waana halka bog cusubna uu ku bilowdo. Page break waa maxay? boga meesha uu ku dhamaado boga kale uu ka bilowda waxaa la yiraahdaa page break. To insert marka si loo soo geliyo a page break sida loogu sameeyo ama loo soo geliyo. In the insert tab waxaan tagaynaa carabka soo gelinta, click waxaad gujinaysaa the page break command, amarka ah page break ayaad gujinaysaa, or aba waxaad riixaysaa shortcut kan ah control plus enter ayaa isla qabanaysaa on your keyboard, looxa furayaasha ayaad isla qabanaysaa the page ama keyboardkaaga. The page break will be inserted, waxaa la soo gelin doonaa page break ayaa la soo gelin doonaa into the documentigaaga ayaa la soo gelin doonaa, and the text will move, qoraalkana sidoo kale wuxuu u guuri doonaa ama u dhaqaaqi doonaa to the next page, pageka ku xiga ayuu u dhaqaaqi doonaa. qoraalka pageka hore joogay pageka ku xiga ayuu u dhaqaaqi doonaa. Columns are vertical blocks. columnyada waa vertical ama waa blogyo ama isku dhasho vertical ah of text kaasoo ah qoraal, in which text follows kaasoo qoraalkaagu uu dul sameynayo ama uu dul raacayo from the bottom of one column, kaasoo ah bottomka ama qaybta hoose ee hal column to the top of the next ilaa laga gaaro waa ee qaybta ugu koreysa ee xigta. This is commonly used, tani si guud ayaa loo isticmaalaa. Newspaperska ayaa loo isticmaalaa, magazines jaraa'idyada ayaa loo isticmaalaa, academic journals journalada waxaa loo isticmaalaa oo dugsiyada ama waxbarashada loo isticmaalaa, newsletters warqadaha loo isticmaalaa. To add sida lagu soo daro columnyo to a document sida column loogu soo daro. In the layout tab waxaad tagaysaa carabka layout, click waxaad gujinaysaa the column commands, amarka ah columnyada ayaad gujinaysaa. A drop down menu will appear, daaqad yar ayaa kusoo muuqanaysaa, select waxaad dooranaysaa the number of columns you want to create, numberka tirooyinka ama columnyada aad rabto inaad soo geliso ama inaad abuurato ayaad taabanaysaa.